waxaan runtii maantay halkaa ku soo dhaweynaynaa xildhibaanadeena sharafta leh labadii haliyey ee maalmahaan oo dhan xidigaha Soomaaliya ahaa xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf iyo xildhibaan Cabdi Xaashi sacabka amarkiiyo waa laba xildhibaan oo wadaniyiin runtii kaalin fiican ka ciyaaray dadka Soomaaliyeed inay dhiigooda kiciyaan waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug dowlad goboleedka galmudug Cali Gacal Xasan sidoo kale xildhibaanada nala jooga halkaan ee maamul goboleedka galmudug ka socda oo xildhibaan carab ay ka mid tahay maamooyinka sharafta leh ee taariikhda Soomaaliya qaybta ka ciyaaray oo ay hogaaminayso maamul Zahra Sheekh Xuseen iyo maamooyinka kale waxaan soo dhaweynaynaa axsaabta siyaasiga oo golaha xisbiyada Soomaaliyeed gudoomiyaheeda muxidiin iyo xisbiyada golaha xisbiyada ku jira xisbiga kulan uu ka mid yahay gudoomiyihiisa Cabdulqaadir barnaamij iyo madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda waa iyaguna dhufeys kale oo dhufeysyada dalka lagu difaacayo ku jira waa soo dhaweynaynaa cali xareed xogayaha guud waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa dhammaan marti sharafta dhalinyarada leh haweenka leh qof walbaba beeqaamkiisa iyo maamuuskiisa haweenka qaranku ay ugu horeeyaan waxaan idin leenahay ku soo dhawaada intaas ka gadaal maanta waxaan u joognaa munaasabad lagu daahfurayo garabka haweenka ee xisbiga Daljir oo qirsan oo lagu soo aadiyay si ula kaca loogu soo aadiyay maalinka taariikhda Soomaaliya ku xusan ee 22 Oktoobar maalinkaas oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed qiimo badan ugu fadhido ayagoo awalba qiimo lahaa ayay qiimahoodii ku soo dhexbaxeen iyo dowrkoodii fiicnaaye la siiyey halkaasuu ka soo baxay tiibay waxaan ku soo moodnay 25 sano la soo dhaafana kartidii iyo waagaas nuxurkii galay oo awalba ku jiray yaa ku soo moodnay waana rajaynaynaa inay ku soo moodnay waxaan marka garabkan haweenka Soomaaliyeed xisbigani wuxuu siiyey ahmiyad gaar ah ahmiyadda la siiyana waa qiimaha ay bulshada ugu fadhiyaan Soomaaliyana meesha ay marayso maantay waa kala goys madaxdeediina meel u wadaan iyo adduunkii qaybo ka mid ah shacabkii Soomaaliyeedna waddo kale u hayo laba waddo la kala hayaa inaan inta madaxda hor istaagno hadana wadada shacabka soo raaca meel qardajeexad haysin wax dalka Soomaaliya lagu kala qaybinayaa haysin wax daraada u dambeeyay calankii Soomaaliya oo bedelan meel lagu soo bandhigaan wadi oo hoos fariisateen waxaan marka garabkan haweenka iyo dhammaan haweenka Soomaaliyeed maanta dowrkoodu yahay inaysan jirin cid dambe oo mar dambe ay waseexdaan dalkan ayagu u istaagaan sidii dalka loo badbaadin lahaa inay qayb ka ciyaaraan maalin kastaaba waxaa lagu daraa qaybaha bulshada la yiraahdaa dhalinyarada iyo haweenka iyo ganacsatada iyo culimada iyo laakiin haweenku intaas waa ka ballaaran yihiin waxayna leeyihiin talada dalka qayb ay ku leeyihiin Daljir xisbigan hadda wuxuu wadada saaray in haweenku hogaamiyo halku dhigeena maanta waa haweenku waa hoggaankeena ama hormuudkeena horumarkoodu waa himiladeena marka hadal badan inaan dheereeyo ahmiyadii Xasan Xaaji ayaa sheegay halkaan ka sheegay soo dhawayntaasi inaan ku faraxsanahay inaan u hambalyeynayno maamooyinkeena sharafta leh shalay lagu doortay kulan weyn oo 400-500 oo dumar ay ka soo qayb galeen ماما حليمة هي آمنة يا مريم ونروح ملياننا
budbuddig u yihiin intaas keliya kuma ekee haweenka ballaaran ee Soomaaliyeed inay iskaashi ka raadiyaan inay la yimaadaan fikirkii haweenku dalka ay ku badbaadin lahaayeen ayagoo kaashanaya haweenka waaweyn ee waayaaraga Shariife Cadow iyo Maama Sahre iyo kulli waa la jooga halkaane ayagoo garbaha ku wata waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado dalku khatar buu ku jiraa runtii waxa socdana waxaan fiirsanaynaa Soomaaliya oo karfanteedii baa la tolaya dalkan karfantiisii ayaa la tolayaa waxaana lagu wadaa annaguna markhaati waxaan ka noqonaynaa inaan qabrigiisa qodno waxaan u baahannahay marka in la soo jeesto badnooma dhaqmana birri ha sheegin qarannimadii iyo meelihii u dambeeyo haddeertaa dowladdii dhexe isku kaayahaysay oo baarlamaankeennu nambar 1 ka ahaa baarlamaankii waa laga soo tallaabsan waa la burburiyey waxaan maraynaa in la yidhaahdo madal wada tashi ayaa dalka maamulaysa waxay soo go'aamiyeen maamul goboleedyada 4 ah in midkiiba 90 daqiiqo hal saac iyo bar dadka jooga tala la soo weydiiyo ma Soomaaliya taladeeda 5 saac lagu soo gabagabayn karaa suurtagal maahan marka waxaan rabnaa inaan dib inta isku tashano waagii hore waxaa la dhihi jiray qolka ICU-da Soomaaliya ku jirta qolka maaragtay gargaarka degdega laakiin hadda karfanti baa la tolayaa waxaan marka xisbiga Daljir annagoo maaragtay hoggaankiisa ku jirna waxaan maantana maalintii kacdoonka iyo kacaanka ay tahay waxaan halkan uga dhawaaqaynaa in dalkan uu ka dhici doono kacaan ama kacdoon dadweyne oo aan waxba lagu qarribayn laakiin xuquuqdii dadka Soomaaliyeed aan ku dalbanayna dowladnimadeena aan ku dalbanayna amnina waxba uma dhimayo madaxweyne cayd gaar looma caynayo looma sito dalka aan wax ku leenahay oo aan u jeedno inuu meel xun ku socdo badbaadintiisa aan u wada istaagaynaa shacabka Soomaaliyeed oo diyaar ma tihin waan mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa kalimaad yar oo ku soo gabagabeeya hadraawi heestiisa hablaha geeska Afrika hablo weerar geli kara habla geesi dili kara gomannimana hanan kara habla talada gooyn kara garashana isaga mida garta madal ka niqi kara garashana isaga mida quruxdana ka wada siman geesteena mooye gayi kaleba ma joogaan hablahaas qiimaha badan oo la yidhi halkan way geli karaan iyo gomannimo talada way goyn karaan garashadooduna waa wax garadku ugu qiimaha badan quruxna haba sheegin adduunka wax lagu haysta male aad baad u mahadsantihiin waxaan noo badana haddii ilaa yidhaahdo dalkan in loo wada shaqeeyo calankaas hadda heestiisa la qaadayay iyo gabadhii hadda kalimaadkay jeedinaysay oo qiimaha badnaa runtii kalimaad ummadda Soomaaliyeed ku wada sifaysan yihiin weeye oo kala qaybin ha ahaato annagoo maaragtayna la kala geegeeyay ha ahaato annagoo la dilaya qax waxayse ka hadlin ma jirto dhammaan waxaasna in laga sheekeeyo keliya kuma imaanayaane waa in ficil loo dhaqaaqaa waxaan annagu hormuud u noqonaynaa haddii laa yidhaahdo ficilkaas waana mahadsantiin